وما بقينا دينتن إن دعاية اللي هو يستاو كمان أبقى لا كمان أبقى صان خطبه ركوش هجني نبي محمد بقى شرفتي سوى حنقني ولا الدعاية دي وحبال لك الشيء عالم الإسلام كأي سيابة كالجديسان وقفل عليه هذا الكين عن عدها دوان كسوير مدحوينها هذا الكاس فرانسيسكا وكنت غيري كرتون كي لو مثل النبي عليه السلام قار كميد ودمada islaamka ayaa gabi ahaan qaadacay wixii ugu iimaan jiray guud ahaan dalka Faransiiska halka qaarka kaleetana ay dibadbaxyo ka sameeyeen ay uga soo horjeedaan hadalka madaxweynaha ka soo yeeray balse dhanka kale sheekada maanta idin wado waa mid ka gadisan gabi ahaan midaasi dawladda Shiishaan ayaa u ballan qaaday ciidii caruur ay ugu dhalatay dalka kuna samis nabigeena maxamed calayhi salaam iyo asxaabtiisa ama reerkiisa qayb ka mid ah ay siin doonto lacag dhan 100,000 oo rubal oo u dhiganta $1,200 waa dhacdo aad u xiiso badan marka loo fiiriyo dhankeeda iyadoo dhanka kale qayb ka mid ah shucuubaha islaamka ay dibadbaxay arintaas uga dhigayeen taa beddelkeeda mu'assasad uu dhisay madaxweynihii hore dalkaasi Axmed Khadiruuf ayaa shaacisay in lacagtaasi la siin doono cid allaale cidii ugu magac dartay nabigeena maxamed calayhi salaam ama asxaabtiisa ama ciyaalka u dhalay nabigeena maxamed calayhi salaam $1,200 culimada Soomaalida ayaa iyana sidoo kale arrimahaasi aad uga hadlay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana kamid ah Sheekh Shibille oo qudbadiisa Jimcada ku soo qaatay gabi ahaan arinta Faransiiska hadafka laga damacsan yahay muslimiinta iyo waxa ay u soo jeedinayaan shacabkooda innaga waajibka ina saarani haydaasi inaan kamira dhalinna waay ilaahay markuu doono wax qarsoona inuu banaanka soo dhigo qof xasan oo sheegay oo adigooba la halmaamayo aan aadba maalmaha looga mashquulsan yahay qodoqodeeyuu keena qodayntii waxay keentaa marka la kaco in nabiga siiradiisa inagu aynu baranno sifaadkiisa iyo qiimihiisa aan baranno wax badan oo inaan kaba aqoonin bay sabab inoogu noqon inaan baranno way oo ilmaheena iyo dadkeena barna kow inaan diintiisii qabsanno ku dhagno ku dhaqanno jawaabta saxda ee labaad taa way jawaabta saddexaad ee saddexaad waa inaan isagii amaantiisii iyo siiradiisii iyo diintiisii ba fidinno way waa 24 saac ugu dambeeyay waxyaabay ugu badnaa ee caalamka islaamka looga hadalhayay waad ku mahadsantahay inaad muuqaalkan daawatay fadlan saaxiibada la gaar adeena